60 sano ka hor ayay u carareen duurka si ay u helaan nolol farxad leh, laakiin markii ay wariyaashu booqdeen, waxay arkeen arrin ay la yaabeen. Waxaa jiro dad awooda inay ka deeqtoomaan dadka kale, iyagoona dareemaya inaysan waxba ka nusqaamin. Maanta waxaynu ka hadli doonaa qiso aad u macaan balse la yaabkeeda wadata. Lamaane ku nool god ka mid ah godadka buuraha dhexdooda, aadna uga fog magaalooyinka. Markii ay soo wajaheen culays dhanka nolosha ah, waxayna doorbideen inay halkan ku noolaadaan si xorriyad leh, kuna dareemaan farxad. Laakiin markii ay wariyaashu booqdeen, aad ayay ula yaabeen. Magacaygu waa Sattaar Cabdiraxmaan, halkanna waa muqbaahiyaha kanaalka Nasiya Media. Haddaba soo dhawow daawade. Kani waa show waxa uu ku dhashay magaalada Nishanj, waana wiilka toddobaad ee qoyskan faqiirka ah. Aabuhu waxa uu ka shaqeeyaa samaynta kabaha. Show intii uu yaraa waxa uu bartay in uu ka shaqeeyo wax walba oo gacanta lagu qabto. Noloshiisana si caadi ayuu ku qaatay, wuxuuna ahaa mid dadaalo si uu helo lacag. Waxa uu gaaray da'da 20-ka, si kadis ayuu wuxuu ku bartay gabar, iyaga oo wada xiriiray, waxayna ku aqbashay duruufta iyo nolosha uu ku jiro. Waa uu jeclaaday, waxauna u soo bandhigay guur, laakiin guurku waxa uu u baahan yahay lacag. Waxa uu dareemay inuu guurku ka sii harayo faqriga haysta awgii. Ma haysto waxa uu wax ku soo gado kuna diyaariyo arooska, wax aanan ka ahayn waxa uu quudanayo, ilaa uu dhaxda ka galay xaalad fikir ah. Laakiin markii dambe waxaa ku soo dhacday fikrad la yaab leh. Haddii uu sameeyana uu awoodi doono inuu fuliyo riyadiisa oo ahayd inuu guursado saaxiibtii. Isagoo u soo dhaqaaqay dhanka iyo buuraha, waxa uu ka raadsaday god ay buurtu daboosho oo buurta dhexdeeda ah. Isaga oo niyadda iska dhahay, maxaa diidaya qof inuu ku sii meel gaaro oo uu ka faa'iidaysto halkan kuna noolaado. Isla markiiba waxa uu ku soo laabtay magaalka, waxa uuna soo qaatay boorso ay ugu jiraan cunto iyo biyo, isagoo horey u soo waday saaxiibtii. Markii ay yimaadeen godka, waxa uu gartay in arrintu ay tahay mid adag, balse inuu riyadiisa rumeeyo ayaa ahayd waajib dushiisa saarnaa. Isaga oo niyadda ugu dhisi jiray saaxiibtii inay ku noolaan doonaan guri qurux badan oo ay xor u yihiin, raaxana ay ku dareemi doonaan, welibana waasac ah. Wax walba waxa uu ka dhigay si hufan, xitaa biyuhu uu u sameeyay god weyn si marka uu roobka u yimaado ay ugu aruuraan. Waxa uu sameeyay alwaaxyo uu isku toosiyay si uu uga dhigo gogol ay ku seexdaan, iyaga oo u soo guuray markii dambe godkii. Safarkoodiina waxa uu ka bilowday halkaa. Sanadku waa 1962, weligoodna ma aysan suuraysan inay godkan maalin uun indhaha caalamka qaban doono. Show waxa uu bilaabay in uu ka ganacsado ugaarsa ama haragga ugaarta, isaga oo duurka aadaya. Kadibna marka uu soo ugaarsado, waxa uu qaadayay tuulooyinka u dhow si uu uga ganacsado. Noloshiisana si tartiib tartiib ayay isku bedelaysay, faqriguna uga baxayay, isaga oo dareemay in cariirigu uu ka degay. Halka ayay ku sugnaadeen iyagoo aanan wax kale u baahan, ilaa laga gaaray sanadkii 2016 markii caalamku uu ka warhelay. Waxaana booqday wariyaal oo ku soo arkay arrimo la yaab leh, iyaga oo sheegay in shay walba oo gurigan yaala uu yahay mid hagaagsan. Waxay haystaan beer ay ku abuurtaan dalagyo kala duwan, sidoo kale beer ay ku jiraan xayawaano oo lagu tarbiyeeyo sida doonfaarka iyo doorada. Sidoo kale waxaa ku yaalo barxad qurux badan oo ay ugu talgaleen inay dadka ku qaabilaan. Qolka jiifkuna uu yahay mid ka sii qurux badan intaa. Sidoo kale kushiin iyo musqul kama maqna halka. Telefishin, marwaxad iyo raadiyo oo ku shaqeynaya cadceedda qoraxda, iyaguna guriga waa ay yaalaan. Guriga waxba kama maqna, runtii sidoo kale iyaguna waxba kama maqna. Wariyaashu waxay soo arkeen nolosha dhabta ah, iyaga oo dareenkooda aad ula dhacay. Show hadda waa aabba haysta 4 carruur ah, iyaga oo ku tarbiyey gurigooda, una tarbiyey si qof jooga magaalka oo kale, aadna u baray inay ku tiirsanaadaan naftooda. Markii ay wariyaashu booqdeen, sidoo kale waxay arkeen carruurta inay naftirkooda wax walba barteen, si qof ku barbaaray magaalka oo kale oo aanan waxba ka dhibnayn. Carruurtu hadda waa kuwa ku nool magaalka, iyagoo aanan iloobi doonin tarbiyantii waalidkood, aynan booqan doonaan marka ay waxbarashada u dhammaato, iyaga oo waalidkood marar badan ku qanciyay inay ka soo tagaan halkaa magaalkana ay yimaadaan. Balse aabbaha mar walba waxa uu dhahaa suuradda guriga anoo arkaya kama tegi karo. Gurigan
cimiladiisu waa mid aad u hagaagsan. Xagaaga gurigan waa qabow, halka jiilaalka cimiladiisuna ay tahay mid diiran. qoyska runtii iskuma arkaan inaysan xadaarad ahayn, balse wax walba waa ay la socdaan oo wax walba waxa ay yaalaan guriga sida telefishinka, buugaagta iyo wax walba oo loo baahdo. ku noolaanshaha guriganna waxa ay ku dareemaan raaxo iyo nafis badan oo nolosha ah. Show maanta waa 81 jir, sidoo kale xaaska uu qabana waa 78 jir. kama zuulayaan inay ka baxaan godkan ama gurigan, wuxuuna noqday qayb ka mid ah noloshooda iyo xasuusahooda hore. qisadu waxaan ka baranaa farxaddu laguma helo xoolo iyo maal, balse inaad hesho qof nolosha kula qaybsada sida aad tahay ayaaba ah farxadda dunida oo idil. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, aad baan kaaga mahad celinayaa haddii aad ila joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan.